Somaliland 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 هنولد يذكر هنولد بسم الله الرحمن الرحيم وحنا أدي أدو فرح سنة هاي إن كسوق قريب قلي أو نصيب كويسي إن أنا ما أنت كسوق قريب قلاه حفلة حرتانك دفعات دلبي صدارات دوكسي قال لي حلال من هلا عيد ماذا قرنك أو كلا دون ويقول بديه عيدك بريسك مركور وين همبليانية لما عيدك بريسك همبليانية دائرة تمان تبارك الله حريا فري إيه همبليانية عيد ماذا كلا يما حضر همبليانية قارن كان هو همبليو إن أنت سو عيدنا أو أقوم أمني يدفاع يا أقوم تدمو سكر استايكو سكر لينا أجد ما قارن كان هو همبليانية بريسك أنت عمر الله ولا جيريو waxaaba ku soo ururiyay inankii gabeeyay halkan ka heesayay labadii beyd oo ku qaaday baba buriiska waxaan ka oran lahaa ninkaas soo ururiyay iyo ninkii gabeegaa sameeyay asatiriyay ayaa soo ururiyay waxaan sheegayaa dhalinyaradiina daada yar maanta markaa tababar ka baxdaan halka calaamada qaranka ku qaadi doontaan kalarka shaarkiina waa awood aanay cid kale haysan ciidamada mooyaane ciidamadu ma qaata shaarkooda ku qaataan kalarka calaamadaasi waxay ka dhigan tahay qoladina buriiska waxaa sii dheersay kuwa kale waxaad haysataan saddexda awood qaranka ugu weyn baa lagu dhibay inankaaga maanta halkaa tabar ka baxay dhalinyarada 6 bilood ka baxay waxaad haysidaa tii madaxweynaha ama xukuumadda golaha wasiirada oo fulinta ah waxaa leeyahay qaranka doonaya loo qabto waxa fuliya oo laga sugayaa waa madaxweynaha iyo golaha wasiirada awoodda idinka la yindhiyo fulinta ciidamada kale lama wadaagaan waxaa kaloo laydin dhiibay waaxdii cadaaladda oo qaranka dastuurku 3 waaxood ka kooban yahay waaxda cadaaladda maxkamadii sare iyo xeerariyii guud iyo garsoorka awoodiina idinkaasi too laydin dhiibay 3 waxaa kaloo intaa ku darsateen waaxdii golayaasha sharci ilaalinta sharci dejinta iyo ilaalinta dejintu baad ka maqan taano بوليس أهم بوصل قرصان مركز شرعي دونيسان لكن واحد شرعي لانت لبضي قوله حكومة كل إلالينا هي شرعية إذا كان إلالية وبوليس قالوا لي واحد إذا هاي صح لليد ما أنت هالك شوفته مسؤول ده لا تصاري آيات القرآن كاهيد إلى هاي كل شيء أما أنا ذو وحنا أبان دين بوره ويديدين وأنا حريصني بني آدم قاضي وشاهد قاضي وحالو كريم بني آدم قبل سوا حل كستهاي شيخ القرآن كآخرها هذا مدحوينها هذا بقرها هذا بلوسك هذا آيات وحي كسورو تأينا كاقا مانتا دليلها إدريس قال له ريبي حل قال له ريبي وقال آيات القرآن كذا حيسه أما ندي عدو لك قاضي حال قرهوه والله سوشيال والله يدين والله يدين وشرعي وحنا واحد سوى أمانة وحاول يديسي إذا كي عافمات كوكرية وأنا هي أذكر قادن إن تقولي قوس كهردي أذكر كرتو إن أضي يا إسلام تسوق القاد كرتو إن دويل يا أبيه قرقاد كرتو تبقى حق شهرته أحواش الشخصي هذا قفقة أيود بليسكو أول لا يهرب قال فراه نختار كوكل ما مركب عافمات كاتها سوين كره عيد كلام سوين كثير ما شفت waxaa laga rabaa hadda booliska tagay xilka ay qaadeen inay soo ogaataan oo qaranka ugu shaqeysaan booliisku taariikh ahaana waa ugu soo shaqeeyay oo amniga dalka socda waa booliisku ku socda taajir lacag leh oo daarana dhigta ma jireen haddaan booliisku naftiisa hurayn haddaan nin booliis u gaajoonayn haddaan mid booliis u dhaawacmayn haddaan mid booliis dantiisa iyo caruusa dayacayn taajir daarana dhisto hebel ay dhaahdo oo xarwada ma jireen قبل حرقتها ما شرتين شيخ قرآن كوا آخر تفسير مال ما شرين أو مساجد آخرها مرة بواحد الأسبوع بتاع أشهر كياره وأشهر بدل نينك مساجد كتشوجي ضدك علم جبارة قرآن تفسير كهوضة مسك أمن يسأل على حتى تشوجي ضد تعلم هذا كأشهر بدل كيبان بدل لبضل هدانو كا بلوس كأن حتى تشوجا إلى أنا أنو شرين شيخ القرآن ضد مبارين ضدك وحاورته مركا حلك سايد الحياة وأنا لا شيء همبليو waxaan ugu doonaa Somaliland iyo maanta
waxaa la socotaan dhammaanteen maanta caalamka dadka wararka baahiya af kastay ku hadlaan iyo meel kastoo yihiinba waxaa aada loo hadlayaa magaca somaliland baa loo hadlaya waxaa lagu hadlayaa wax kale ma aha waa intii ay shacbiga somaliland qabteen dad isogol khilaafkooda xalista horumar doonaya cid aanay ictiraafsanaan dalkooda dhisanaya qof waliba halkiisa iska xilsaarayo waxay qof walba ugu muuqataa inay tahay dad iyo dal wax lala qabsan karo oo jira oo aan dhah laga qarin karin marka xawlal caalam maanta ayay taagantihi somaliland inta ka dhiman waxaa buuxin kara waa dadkeeda dhibaatooyinkeena haysta ee bulshadeena waa laba qodoboo isu heliya ayaana haysta waa qabyaaladda iyo faqriga labaduba kala maarmaan oo qofkii markuu faqiir yahay wuxuu ku tiirsanaanayaa ciddii dhalasho ahaan ama gobol ahaan ama deeg ahaan u xigta waa waxa adduunka o dhan baa soo maray waxa lagaga bixi karaa waa faqriga oo loola dagaalamo si faqriga loola dagaalamona waxaa loo baahan yahay inuu qofka muwaadinka xilisa saaro oo uu shaqo abuurto haddii dadku aanay shaqada curin shaqadu ma tira shaqaan haya qofa u ii kaalay caalamkan wada horumaroo dhammina taas unbuu ku horumaray lama arag caalamka taariikhdana may dhicina mayso dal aanu dadkiisu horumarin oonu shaqaynin oo mucaawino iyo wax sadaqad gacanta looga dhiibo ku horumara horena looma arag haddana la arki maayo rag baa dood keeni doona odhan doonaa marshal balan baa jirayo markii ayuu burburtay maraykanka usoo gurmadayo dhaqaalo intaasoo bilyan geliyey waa la taageeray taageeradina way ka faa'idaysteen jabaanka iyo yurub oo jarmalku ugu wen yahay muddo sanaday kaga soo kawdeen wixii burbur gaaray marka qof kasta oo kufa gacanta la qabtaa waa la kiciyaa isagaa dhaqaaqa isagaa shaqeeya caalamku taageeru kugu leeyahy inuu maalin iyo laba iyo muddo rogaan ku caawiyo laakiin ma dhici karayso dad noloshooda ku xidha anagu waan sheekaynayaa waan qaylayaa waan faanayaa riyaan ku noolaanayaa xaglahaygu way laabnaanayaan haddana waxaan doonaya horumaro ma dhacayso inteena maanta nool waxaa inagu waajiba qof waliba inuu shaqo waxayto wuu qaban karaa shaqo bini aadmigu maanta waxa magaalooyinkeena waliba caasimadeena ugu badan oo dayac badan oo wadale oo qashin leh oo tabanla ka muuqata waxaa la yidhahdaa mee dowladdii hoose dowladda hoose waa shan iyo labaatan qof waa ina yar qof waliba inta gurigiisu yahay hadduu ka shaqeeyo hadduu waddada inta kusoo beegan isagoo qabto hadduu qofku axragooda qashinka oo gurigiisa kuwaas ku baabi'iyo iyagana waa la canaanan laga dhaafi maayo waxay seegeen eedda iyagoo qaaday iyo mid waliba marka waxay ku xidhan tahay xagla laaban xoola kuma yimaadaan waan qaynayaa 8 saacadood waan sheekaynayaa waxaanan garanaya faan iyo hadrood iyo waan kaa daaweynaya adayga horreeyey baa lagu daalayaa waxaasaa waqtiga lagu lumiya qof gurigiisa iyo carruurtiisa xataa hadduu gurigu daruurimay islaanta la dhoobdhooba marihin qof inankiisa yar gurigu ka soo baxaya tiinka ku horyaala ka goole uu karayaayo marihin nin waliba guriga si degdeg uga baxa xataa carruurta haddii hooyadood bugto dib uma eegna inagu waxaynu ka dooranay makhaada iyo mafrishka iyo buuqa sidaana laguma dhaqmo ilaahay 4 saacadood waqtiga nooga dhigay maalin habeen 4 saacadood waa la qaybiyey diintaa qaybisay caqligaa qaybiyey 8 waa nasasha iyo danahaaga cibaadada ilaahay ku qaybaa lagu yiri iyo hurdaada ka bogo 8 shaqee dalalka hore u maray ee ugu horeeyaan Jabaanka iyo Jarmalku waxay ku dareen 8 saacadood caalamku shaqeeyay intii ay dhisanayeen 2 sanadood oo qaran ku leeyahay oo aanay gunad qaadan imikana qofka dalalka ka mid ah waxa uu shaqeeyaa 14 saacadood waayo shaqadii mooye wax kale ma garanayo shaqada naftaada daryeeshada caafimaadka ka yarsa kamid ah caafimaadka jimicsiga kamid ah caafimaadka intaad fadhido ee waqtiga xaglu ku laabayeen cudur baa kugu socda sigaar baad cabaysaa jaad baad cunaysaa cadaadad ka fadhida xarun jirkaaga dilaysa tusaale saaka waxaan halkan la yaabay halkan tababarka saaka waxa dalbalay ciidanka ugu horreeyay ninkii tababaray ee macalinka u ahaa daba gala jarka horjooga jitaba waa kan ciidankii tababarkii dugsigii mahdi cali hayay dhowr iyo 86 tababara aroorba soo kala lahaa ayuu ahaa lacag muu dhaqan taajir muu noqon waa tiba jir soo taagan muxuu tabcaday dalkoo dhan buu si cabgeliyey
kuwii ku tababaray dugsigii mahadu madaxda ka ahaa waa kuwii dalka xoreeye u dhintay ee cadowga ka qabtay ee maantana tukana taagan ardaydiisi kuwii bulis waa ku tababaran waa kuwa maanta qof walba ku seexanaya ee dalka jooga yaa taajira ma isaga ninka daararaysa hebel ilaa mise isaga taajira oo dalka dhisay dad caynkaasaa la rabaa oo dalka u shaqeeya kii uu tababaray isagoo inan yaraa noo yimid waa janankan maanta la wareegsay dabagala waa kii alafka u qabtay ee kabaha u xidhay ee saas u ciidan yahay waa tibashir cadi hor taagan wuu ka caafimaad baday dee addiisii o dhan maanta waayo aroorba u jimicsada tobanla lamidaa jooga oo lamida markaa shaqadu inaynu ka baxno ra'yigan inaga lena raba dadkeena inaynu tababarayno u jehayno waa inaynu maskaxdeena gelinaa dalkana kolba inta dhisnaa bu dhisanaya macdanta rag baa qotay badda rag baa wax kala soo baxay rag baa birta dhalaaliyey waa inala mid 9 bilood bay ku dhasheen hay-addii maxay qabatay dowladdii maxay siisay dowladdu waxay dhisaa marka dadkeedu shaqeeye uu lacag soo saara uu cashuur bixiyo ayuu dowladda dhaqaaleedu kordhaa oo ciidankeedu dhaqaale helaa oo caafimaadkeedu hagaagaa waxaan doonayaa inaan mid qodob kale kusoo isu taago waa qodobka nabadda dhibaatada ina haysataa waxaa weeye khilaafka deegaanka jago mid 10 mitir ayaa qof lagu dilay waxay nagu dhacday waxaanu ka imaanka baxsan inaan dhul waayno meel doonayno waayno hadda waxaanu ka baqanaa meel la isku aasay la waayo saa dhulkii nin walba meel budanaana waa sheeganaya waa maskax nagu dhacday dhulka baacmitar galay taas socon mayso dhulka waxa la inteena nool iyo inta dhalan doonta iyo inta dhalan doonta iyo inta dhalan doonta oo fiirso laasgeel sawirka ku yaala waa 6,000 sanadood ka hor ayaa halkan dadku noolaa awgeeshee ku noolaa 5,000 ilaa 6,000 sanadood waa nabi ciise ka hor ayuu dadka ku noolaa dadkii dhulka lahaa way nooga tageen maanta inagaa joogna kumaa kun sano oo soo socda dhulku waa inaga badan yahay kontarka sano soo socda dhulkeena dadku ciidu kuma noqonayo dhul weyn buu ilaahay nasiiyey oo bad leh oo buur leh oo kayn leh oo bannaan leh inaan dadkeena fahamsiino wey yaa qaadaya fahamsiinaya waa buriiska waa iyaga dhibs ku dhacda bil walba nin baa ku dhintay buriis ama ku dhaawacma dhul la isku laayay ka badan haddaan bishii lama jeclahay inaan dadka fahamsiino waa dhulkooda u furayay iyo in loo nidaamino ceel baynu wada baahannahay caafimaad baynu wada baahannahay waddaynu wada baahannahay tacliim baynu wada baahannahay waxaynu ku qabsananaa inagoo oo qalbiga iska aamina wax wada qabsana hore wada mara ma jiro qabiil magaalo keligii camiraya ma jiro qabiil keligii meel dowlad ka dhisi kara waxaynu wax ku nahay waa isu tagga somaliland oo midowda waxaynu ku dhaanaa qoladii koonfurta oran jiray inagu weli waan ismaqlanaa oo dhadhowna laakiin halkaynu doonay maynaan gaarin way fog tahay halkaynu doonayno inaynu eegano maha kuwa burbursan inaynu xagga hore eegnaaba odhana intee baynu qabsanay inagu waynu ka wanaagsannahay maxaynu kaga wanaagsannahay maanta waxay ahayd inaga in dalkeenu uu baritama 30 sannadood oo xorriyada inaynu la baratannahay dowladaha horumaray hankeenu waanu halkaa tagaa inankeenu iyo inanteena waanay taageertaan hankeenu waa inuu kor kacaa oon la eegin inagaa kuwa ka run waa nin fadhiya oo curyaana oon ka cayn waan tallaabsanaya waan dhaamaa inaad orod ku dheranaa waan rabnaa taa inuu mustaqbalkeena noo sheegno aynu rabnaa furiintaynu kala qaadanayna maanta waxaa weeye dalkeena si aynu u dhisayno ilaahay mahadi meel wacan baynu marayna laakiin buriis tababarkiina waxaan idinku darayaa waa inaad noqotaan tabliiqiyiin dal jacayl dadka isku mideeya is ogolaysiiya u sheega balaayo aynu isku qabsano oo ay dhibeena jirin waxaan ku amaanaya ciidamada qaranka iyo qolada imika aanu hayno ee shaqada qaran oo iyagu rahmo wanaagsan haya inay ka horeeyaan dad kale oo ay xagga uga horeeyaan inay hawshaa qabtaan waa se waana aynu tabliiqa qaadno si aynu dadkeena u kala nabad galno oo inaan maalin walba doontooda ku qasbin iyaguna dhagax iyo xabadi lagu soo ridin haddaa boliiska tiya maanta somaliland waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaarka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaaya nabad jaarka iyaga oo dhan oo dhinac kasta naga xego waxaan u fidnaa gacan nabadeed haddii xitaa aanu isqabanay inaanu hab wada hadala oo nabadgelyaa wax ku xalino dad ka soo daalo waaragaan u nahay dagaal iyo qax uma baahnin caruurtayada iyo inta naga dambeysa inay taa gashada diyaar mani gudaheena iyo dibadda soona nabad baanu ciidanba u haynaa oo dalalka dariska ah caalamkana nabad baanu u haynaa
wax kastoo horumarka iyo biniaadmiga dhigayo waa kasoo jeedaa wax kastoo biniaadmiga iyo caalamka u horumarinayana qayb baanu ka nahay mid baanu isa sheegaynaa annagu Soomaaliyeed baanu nahay cid walba dantaydaanu kula shaqaynaa iyo danta horumarka dalka iyaga qof kasta oo nala shaqaysanaya oon waxba qabsanna diyaar baanu nahay annaga oo laba dowladood oo siman ah oo saa garabkayga isaga eegayna ayaa lana dal iyo dad baanu nahay maxaan kula qabanaa cidna ka yeeri mayno wax annaga qarnimadayada wax dhimaya cidina nagu matasho badda cas dowladaha badda cas idin waxaan u samaynayaa ciidan difaaca ee magacayaasha badan isteeda dowladooda waxaanu cod dheer u sheegaynaa badda iyo bariga iyaga annaga difaacana cid anagala tashana imanna mayso kana yeeri mayno mana nihin qolo ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taangiibu wataa midna ma aaminsanin horaan taangiyaa lagu furay qori iyo takiya ma nihin qolo taa ka baqanaysa nin wala xoog weyn waxaan u sheegaynaa nabad iyo wadato ka aragna aad iyo aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.